koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan sii badbadanaysa bur iyo dagaal baahayoo bahaya reerreer ah oo baariyaal lagu dilaa taa ma bixiyaane ilaahay inaan ka baqno oo barinna mooyaane wax kaloo la buunbuuniyaa bara ma gooyaan reer kale maanow ba'leedasa baabka jeedsidee anan handho iyonay dhegah iyo amira tani shalay barganema buurku isaaraasiinka baryaay walaalayaalow buurkii wili sidiisa baylan eeyaa boqoriintii dhonka moqanyiina markoley buurku ma isaartana yaaqay madeeyow gabaga ba'leyda aad noo sheegaysa makana nimayow hadda ka hor nimaa geel halleexa leh ku jirto tuulo soo marsiiya idinku helleexa ma taqaaniin aan idiin caddeeya hal kurusku qalloocan yahay gooyow xaariinow la soo booda argeelow inta kurusku isaga soo ridoor waa kaa dhici rabyaa dhicihee maysa waa iska socota hash argeelow ma isaga soo rididoo kuruska waa kaa dhici hashi waa iska sii socota haddana dhinacow kala tagaasoori geelow hay dhaafina inta ku rid waa dhici diiday kurusga waa iska gudub markaasee wuxuu yidhi hal yahay kuruskan an lee idhaafaysaahe meel aad geyhaysa ma dheera marka warka maday isaaq waxaan u fahmay yaan lay dhaafina buurka ha lay saaro buurkana sahal laguma tago aroogeela xaasidsanaa labagood lamaalahay kuruska xaarinka ma iskiiga riddo kollayba meel dheer ma geynayse gerilla amaanaa geeda amaanas kurus may kaarin aan kursi fadanahay kursi baba yaabaye kursiga canjeerada lagu dubaayay ma wili laysku haystaa madeeyow waxaan aad wadaa waa xildoon xumo hooba dhaafi weytana adi warkiin yaalle magaagaaga meeluu ku yiin lahaa tariikhaye intaasaan ku soo koodaya yaanan sii badin af ingiriisi ama af soomaaliga widaayey allow yaabaa jira talyaani maas ka hadle ingiriis maas ka hadle soomaali maas ka hadle maxaa sheega hadda waldaneeyow dawla inbaahanaaye ow yiriya ma talyaaniyow ku warramay yaab dadkan xitaa afkooda haddaad ugu gabayda ka ammaan heli maysid wari afka araka buusin doohaanas afkaymaya oo dhegansoy dalkeen ii dadkeen diinteen furgaan ee duunyada nool dawlii inbaahanaayeen waldaneeyow dawlii inbaahanaayeen waldaneeyow dawlii inbaahanaayeen sumataro armaday isaaqow owganeeyow geelaalinbaahanaaye maa tiri ar waxaas idiin yidhi bulshadaydii buurkaa inbaahanaaye bulshadaydii buurkaa inbaahanaaye maxaas halleey waaba toosan yahaye war meeshaan rag badan baa boholyo ugu dhacay sahalkaasna buurkaan laguma koro haddana waa bannaanya haddaa isleedihiin waxaa fadhiya kusinihii madaxweynaha ahna kusinihii guddoomiyaha baarlamaanka ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ahna guddoomiyaha aqlaabiyadda mudane cabdiweli ibraahim muddey wallaahi uma wallaahi billaahi uma billaahi tallaahi uma tallaahi kursigaan waa la wada rabaa dadko dhammina waa u baahan yahay laakiin in sharci lagu tagaa muhiima wardhaartan copyrightkeeda aaba oo laska biliqaysanayo aryaada heesta khatara daahir qaadi jirtaa igu soo dhacday aheeday bukaan socodka liitaa dadka wou ku badan yahaye how baraq nuglaan howl dhibkan baa xadiis leh waryahan nambaratow madadale dambaylanka baradu waaye madeeyow kursi haddaad u baahan tahay kursi luka jabanaa gurigayga yaale iska kabkabo waa kugu sadaqaysaa warnimada waxaan daawaday layfkii sheekh xasan daahir aweys waxaanna ka ogaaday berigii sheekh shariif madaxweynaha noqday hadduu sheekh xasan daahir noqon lahaa inuu kursigu madaxaha ku furto noqon lahaa dhiigguna falaqlay lahaa uusanna ka kici lahayn sababtoo doorashadii xamar ka dhacday ayuu xaqirayaa oo wuxuu leeyahay meel cidlaa buu uga tegey shariif wiyaad nafta wala koo galdan sheekh xasan daahir aweys kursigu jaleeysa meel idleelanka tabi ma erna muxuu ahaa bahalkii ilmihii meel idlaad kaga tagtay muxuu ahaa magaciisa bahalkii caqiidadii meel idlaad kaga tagtay muxuu ahaa asxaabtii saaxiibada aan ahayn oo isku mabda ahayn meel idlaad kaga tagtay mabdala'aan baad meesha ku joogtaa mabdala'aan baad meesha ku joogtaa inaaderow ilaahay ka absa muxuu ahaa bahalkii ilaahay ka absa yaa eri fardabahi war sheekh xasan hadduu ku fadhin lahaa iyo hadduu ka kici lahayba kursi aan cidna ku haysan ayuu
ayuu ku fadhiyaa maanta aryaadhaha hala yaabina shiiqe waxaa la yidhi hadda ka hor how ninkii waareera weligii waqooyi koonfurow yira ninkii waareera weligii waqooyi koonfurow yira hooy cabdulle abshirta oo aweyska ma imaan jirin saas ma ahayn mandii la weynaado la wekiyobo warka waa kaa wareersaa warwar ma haysaana way iska qaylinaysaanina dhegayst beledweyne masiibadii ka dhacday gurmadkii iyo gargaarkii ummadda soomaaliyeed u soo aruurisay dadka masaakiinta oo webigu ku fatahay ayadoo suuqa lagu kala iibsanayaa maanta la arkay baa la yidhi yaahu xumbaal waa la ceeboobay cabdullow qabri ceebeed meelow ku yaal ma aragtay hooy abuutay waana weyntee aad hunguraxadowshi mee bilowday war nimankii aan u dignay musuq iyo maasuq weli ma makrigiyay wadaan iimaanka alla ka qaada kuwaas horta maanta musuq waa la soo xiraa la yidhi laakiin maasuq baa alaabtii la fakaday oo fare cidilo ku baxsaday baa la yidhi musuq iyo maasuq haddii la qabto qarshe iyo qaadaa jooga ooyanbaragaadaga walha gobadii laakiin qariya luwaysanya aryaadhaha hadaalina qorayaa waxaa loo yidhi how musuq yaa maasuq meeshii loo dhigay weeli miilicsaadan musuq yaa maasuq meeshii loo dhigay weeli miilicsaadan haye oradhaa war ma haysaane gaashaan la dhexe cumar cabdiraxmaan taliya ku-xigeenkii hore ee ilaalada madaxtooyada hadda waxaa loo magacaaba taliyaha guutada 7aad ee qaybta 6aad ee ka howlgasha shabeellada hoose afgooye ilaa walaweyn waxaana lagu bedelay taliyihii hore guutadaas xasan jaamici war ma haysiine xasan jaamici waxa loo magacaabay taliyaha guutada 1aad ee qaybta 12 abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marka xasan jaamici iyo cumar cabdiraxmaanba shabeellaha hoose howluga taala eebaagoo taliyihii wax taraya war xanuun jawahan maqlo in wax laga qabta raba beriga shabaab meel fagaaraa waxay ku toogteen guddoomiyihii iyo ku-xigeenkiisii tuulada cadayga la yidhaa ee balcad agteera ah mugga taliyihii wax taraayow cadowgaasaa ku koraaya aroo taliyaashaan waa shabeellada hoose adna ma sheegaysid waa shabeellada dhexe arreegooyobow shib naga dheh shabaab iyo shabeel xabad isuma kaa dhaamaane war boosaaso laba taliyaa ku tururtaa la yidhi dagaalkana beledka banaankiisa uu ka bilowdaa la yidhi kadibna magaalada isla soo galeenaa la yidhi war ma guddoomiya dhooba gareena ciidan la soo galay boosaaso boowe buntland garan maysaana sheekadaas kama socoto aribow adiga laftaada buntland war kama haysiide waxaa ka socday diiwaangelinta musharaxiinta guddoomiyaha baarlamaanka may axmed madoobe madaxweynenimadiis tusha leeri may lahayne war axmed madoobe beesha caalamku waxay ku tidhi doorashadii jubbaland lama aqbali kara waa in lagu noqdaa isaguna wuxuu yidhi yaa la yidhi oo tii baydhaba ka dhacdaba waad aqbasheene maxaa tan kismaayo ka dhacda ku diideen war qaramada madoobe waxay tidhi doorashadii baydhabo ka dhacday dawladda lacag badan ay ku bixisay aroo war mahaysiina shirkadda Itoobiya waxay tidhi buntland iyo Soomaaliland waxaan u naqaanaa yiraahdeen dawladda madax bannaan ciddaan rabnaana wax ka iibinayna hay dhaheen haye Itoobiya waaga dulmiga miyaad wadiin war shirkad Soomaaliland waxay tidhi ismaamulka Tigreega iyo Soomaali galbeed dawladda u naqaanaa hooy dawladda oo Soomaaliya waxay tidhi safaarada oo Bariis aan ku leenahay waa u haweenayna dhaheen war ma haysiina guddoomiyaha xisbiga himilo qaran xildhibaan Salmaan Maxamuud Xaashi wuxuu yidhi hadalkii madaxweyne Shariif oo wallaahi thuma wallaahi waa bixinaynaa si qalad ah loo fasirtay waxa madaxweynuhu ka hadlayna dagaal ma ahayn dad aan qalad uga faa'iideystay oo si uusan ahayn u fasiray marka haddaan idiin cadeyno madaxweynihii Suudaan oo militariga ahaaba banaanbaxa lagu bixiyay runtiis way wariiri madii wal hadlaayo si wareeriyay waleeri war madaxweynihii hore Sheekh Shariif wuxuu ku dhaartay waa baxayaan madaxda dawladdu ayaguna dhaarfuriyo u sameeyona waa baxeen waana soo laabanayaan war hay'adda culimada Soomaaliyeed waxay yiraahdeen waa qalad in la isdhexgeliyo qodobada dastuurka ka hadlaya xuquuqda dumarka iyo diinta islaamka waa harta dumarka iyo diinta maxaa la taga dawada intay ku kala herayaan waa ku dhasheen dumarkii hore diinta in isdiidi war ma hay'ada waxay leeyihiin dumarka xuquuqda meesha lagu cadeeyo war dumarka xuquuqda diinta waa cadeysay arooda midkii diinta cadeysay ma rabaan mid kale ay rabaan muqaalifooyin ahahe war maqaalifo manin in koontada dastuurka lagu cadeeyaa rabna koontadu waxay tahay ma ayuuta mangotihe war madaxyo wax kastaan u baahannahay yaa waa idinka warnimada kooxi male dawladnimada awlaadirin war boqolkiiba 30 ay kuliya haweenka dastuurka
idin gelshe